maxaad kala socotaa safarka Darisley iyo sidoo kale qurux ku dhiigle ee dalkaasi Malaysia? Muuqaalkan ayaad ku dhammaystiran doontaan xogaha iyo sidoo kale macluumaadka faahfaahsan ee ku saabsan safarkaasi iyo waxyaabaha uu xambaarsan yahay iyo arrin surprise ah oo ay doonayaan in dalkaasi Malaysia ay ka dhigaan. saacadihaynu kasoo gudubnay videogan ay kasoo wada muuqdeen Darisley iyo sidoo kale qurux ku dhiigle oo la arkayay iyagoo taagan afaafka hore ee gegada diyaaradaha caalamiga ee JKIA waa Jomo Kenyatta International Airport ee magaalada Nairobi. Iyagu waxay sheegayeen in safarkoodu yahay mid iyaga u qaasa, islamarkaana dadku ay gadaal ama dib dambe kala socodsiin doonaan safarkaasi iyo halka ay tegi doonaan, indhahana dadku ay iyagu ku arki doonaan. dhinaca kale waxaa la arkayay video uu kasoo muuqday sigi Soomaali kaasi oo barta TikTok-ga qish dadka ku siinaya, maadaama la arkayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho, sidoo kalena ku sugan garoonka Aadan Cadde Airport ee magaalada Muqdisho, kana sii ambabaxaya, islamarkaana qoraal kooban oo halkaasi uu kusoo raaciyey uu ku yiri waxaan u sii ambabaxaya oo aan ku wajahanahay dalkaasi Malaysia. Haddaba Darisley waxa uu halgan dheer iyo dadaal ugu jiray kuna hanweynaa 1 milyan oo subscribers in uu gaaro dhanka YouTube-ka, waana garabkiisa waxaa taagneed Samiixa Nairobi oo uu ku noolaa ama muddooyinka ugu dambeeyay lagu arkayay oo aada u joogay, ayaa haddana waxa uu go-aansaday in uu gaaro dalkaasi Malaysia. Haddaba xafladii ayaa soo dhawaatay 1 milyan ee subscriberska. Haddaba Darisley iyo sidoo kale Asad Xaajiyow ayaa waxa ay ku ballameen in Darisley marka uu gaaro 1 milyan subscribers in bahda YouTube-ka ama youtuberada Soomaaliyeed in loo qabto xaflad aada u weyn oo iyagu ay dhiganayaan, oo noqoto xaflad midii ugu weyneed, taasi oo dad yow kala duwan ay kasoo qaybgeli doonaan, iyagoo halkaasi ku damaashaadi doono, farxadoodana ku qaybsan doono. sida muuqatana munaasabadaasi ayaa maalmaha soo socda la rajeynaya, maadaama waxaa imika u haray keliya ay tahay 10,000 oo subscribers. dadku waxaan leenahay u subscribe gareeya Darisley, aniguna waa uu ii saaran yahay subscribe. dhammaan bal asxaabta waxaan leenahay ku taageera si mid ka mid riyooyinkiisa uu ugu rumeeyo guulna uu gaaro. dhinaca YouTube-ka marka la eego guushan ay aada ugu hardamayaan dhalinyarada Soomaaliyeed dhinaca YouTube-ka, iyagoo sidoo kale magaca Soomaaliya adeegsanaya, sidoo kalena luqadda hooyo adeegsanaya, haddana ku dhiiranayo in iskooro waaweyn ay ka dhigi karaan barta YouTube-ka. dad badan oo ajnabi ayaynu arki jirnay oo caan ku ahaa YouTube-ka, kuwaasoo hiigsi fog ka lahaa dhinaca YouTube-ka, islamarkaana horumar badan ka sameeyey. laakiin muddooyinka ugu dambeeyey wixii ka dambeeyay 2015 dadka Soomaaliyeed ee ku dhiiranaya in akoono YouTube ay furtaan, in sidoo kale dadka ay ku maaweeliyaan muuqaalada dhinaca madadaalada, muuqaalada kale ee caadiga dadka xogooda ay dadka ku siinayaan akhbaaraad iyo arrimo kala duwan ayaa aada u tiro badnaa. marka dhinaca loo eegana run ahaantii saameynta bulshada Soomaaliyeed dhanka social mediaha aad ayay sare ugu sii kacisay oo ay sii jabaarmaysay muddooyinkii ugu dambeeyey. tanina waa guul inaga inoo gaar ah, waxaana rajeynaynaa inaga dhexdeena inaynu istaageeri doono midkaan midka kale guushiisa uu ka saacidi doono, garabna ku siin doono, kuna farxi doono, waana arrin loo wada baahan yahay. Darisley Cabdi haddii aynu kusoo noqono dalkaasi Australia oo ku noolaa, kadib waxa uu go-aansaday inuu soo gaaro ama soo dego dalka Kenya magaalada Nairobi, waxaana muuqaalo halkan si wada jira ay kusoo wada gudbinayeen isaga iyo sidoo kale Darisley Cabdi ayaa la arkayay isaga oo dadka ku boorinaya in mar qura ay u rumeeyaan guushiisana ay gaarsiiyaan 1 milyan ee subscriberska. dhinaca kale haddaba siki Soomaali oo wiil wada shaqeyn ay kala dhaxayso Darisley ayaa isna waxa uu xaqiijiyey in safarkooda uu yahay magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. Asad Xaajiyow oo dhowaan u dabaaldegay milyanka subscriberska ee YouTube-kiisa, iyadoo ay jireen xaflad sidaas u weyn oo Asad Xaajiyow ku maamuusayay, islamarkaana uu ku mashxaradayay dabaaldega haddaba horumarka dhinaca YouTube-ka. haddana waxaa muuqata Asad in uu qorsheynayo in xaflad sidaasi u weyn oo marar badan uu YouTube-ka uu shaaca kaga qaaday in uu dhigto. haddaba waxaa leeyahay marka dhalinyarada Soomaaliyeed Darisley iyo sidoo kale Asad Xaajiyow oo iskaashanaya iyo waxa ay dalkaasi Malaysia ku qaban doonaan munaasabad aada u weyn. sababta loo hiigsanayo Malaysia ayaynu eegeynaa. waxaa ku nool oo saldhig ay u tahay ama Malaysia xarun ay u tahay dad badan oo Soomaaliyeed oo dhinaca YouTube-ka marka la eego, dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo iyagu jaamacadaha dalkaasi Malaysia waxbarasho howlo waxbarasho joogay, dhalinyaro badan oo iyagu maanta YouTube-ka magacii miisaan ku leh, islamarkaana halkaasi inta badan ku nool.
waana wadan dalxiis, waana wadan run ahaantii caafimaad loo tago, waana wadan si kale marka loo eego asiada wadamada wadanka ugu wanaagsan uguna qurxoon, dhismaha adduunka ugu dheer ayaa ku yaala magaalada kualaalambur. kaalinta labaad ayuu kaga jiraa baan filaya dunida oo dhan. waa meelaha loo dalxiis joogo, sawiraan qurux badanna dadka isaga soo qaadaan. asad xaajiyow, maadaama Dirisle Cabdi uu kamid yahay dadka aanu weli tegin balse ku haminayeen maalin mar Malaysia ay booqan doonaan, imika riyadiisa ayuu rumeeyey. waxa uu ku sugan yahay magaalada kualaalambur ee dalkaasi Malaysia. xoogo kala duwan aynu soo gudbin doonaa haddii rabbi raalli ka noqdo. hase yeeshee haddana xafladan iyo sidoo kale dabaaldegan 1 milyan ee subscribers ee Dirisle iyo sidoo kale Asad Xaajiyow ayaa waxay noqon doontaa tii ugu wanaagsaneed uguna markaasi la yaabka lahayd abid, oo dad dhalinyaro ah islamarkaana youtube-ka heer sare ka gaaray ay ku qabsanayaan dalkaasi shishe. haddaba muddooyinka ugu dambeeyey waxaan arkaynay dhalinyaro badan oo socdaal kala duwan ku tegaya ee dalkaasi Malaysia. waxaa kamid ah CK, waxaa kamid ah Maxamed Ashey, waxaa kamid ah sidoo kale Cadnaan oo isna mar qura la soo kulmay Asad Xaajiyow halkaasina tagay. asad marka iminka marka si loo fiiriyo youtuberka markaasi ugu horeeya dhinaca youtube-ka taya muuqaal haddii la yiraahdo, fiidiyoyada uu sameynayo tayadoodu aada u wanaagsan yihiin, iminka kaalintaasi waa uu ku jira. sababta ay ugu dhiiranayaanna waa taasi dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkaasi higsanaya. asad rikoorka ugu weyn uu sameeyey waxa weeye 2019 oo janalkiisa uu furay dhammaadkeedii, 2020 oo uu dadaal badan geliyey 2021 ayuu wuxuu ku mutaystay in 1 milyan oo subscribers uu gaaro. xilligaasi waxaa aada ugu horeeyey CK, waxaa ka horeeyey Dirisle Cabdi, waxaa ka horeeyey arrimaheena oo garabkiisa ah, marna walaalkiisa, marna qof si wanaagsan isagu uga caawiya dhinaca youtube-ka lagu tilmaami karo, walaalo isjecelna la oran karo maasha allah. haddana bal dadaalkaasi iyo waqtiga uu sameeyey sida dartar kale, bal Asad Xaajiyow arrintaasi ayaynu u daynaynaa haddii rabbi raalli ka noqdo. muuqaal ayuu soo duubi doonaa isaga iyo Dirisle arrintan ay ku faahfaahinayaan. ma xaflad weyn ayay dhici doontaa? Dirisle waxa uu doonayaa in riyadiisa uu rumeeyo oo 1 milyan. Dirisle waxaan dadku ay u haysteen in Nairobi uu ku dhigan doono munaasabad. Nairobi sidoo kale waxaa ku nool youtubero aada u tiro badan oo fara badan, dhinaca youtube-kana iyagu kaalmaha hore kaga jira, oo xitaa wada shaqeyn ka dhexeeya oo saaxiibo ah oo dhalinyaro wanaagsan ay ku jiraan. iminka maadaama Dirisle uu gaaray dalkaasi Malaysia, ma waxaa la oran karaa xafladii halkaasi ay ka dhici doontaa, mise waxaa dadku ay markaasi oran karaan run ahaantii Dirisle waxa ku adkaatay oo laf dhongasha ku noqotay inuu 1 milyan subscribers gaaro, oo milyankii ayuu halkaasi u doontay. Asad Xaajiyow ayaa waxa uu noqday qof markaasi isagu si fudud horumar uga sameeyay youtube-ka, cid alla cidda garabkiisa kasoo muuqatana sidaasoo kale guul ay u gaarayso dhinaca youtube-ka. rajaynaynaa guushaas inay noqon doonto mid aada u weyn oo Dirisle isna uu riyaaqi doono.